Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago 5 shay aad ku dhaqaaqi karto si aad noloshaada horumar ugu gaarto. Qodobka koowaad waa inaad diiradda saartaa oo aad xoogga saartaa waxyaabaha aad adigu wax ka qaban karto oo aad awooddaadu ku jirto. Looma baahno inaad isku daaliso waxyaabaha aadan waxba ka qaban karin. Qodobka labaad waa inaad ku dhaqaaqdaa wax kasta oo aad qaban karto inaad qabato. Looma baahno waxyaabaha aadan waxba ka qaban karin inaad isku daaliso oo aad ku celceliso. Qodobka saddexaad waa inaad hal shay aad diiradda saarto oo aad ku celceliso ilaa hadhow waxaasi wax weyn ay ku noqdaan. Aadan ku caajisin oo aadan isdhihin waxaani waxba kuma tarayaan. Qodobka afraad waxaa weeye qaladaadka aad galayso waa inay ku noqdaan experience. Waayo khaladkaaga inaad ku celceliso wax faa'iido kuma keenayso. Qaladka aad maanta gasho bari waxaa laga rabaa inaad bedesho. Qaladkii aad maanta gashay bari waxaa la rabaa inaad saxdo si aad noloshaada markaasi horumar ugu gaarto. Qodobkeena shanaad oo ugu dambeeyo waa inaad isku daydaa waxyaabaha aad qabanayso inaad joogtayso oo aanad quusan wixii marka aad bilowdo isku day inaad dhammayso. Marka aan saas ku leeyahay waxaa jiro dhalinyaro badan oo ay rabaan inay noloshooda horumar ay ku gaaraan. saas ay tahayna markii ay bilaabaan inay noloshooda horumar ay ka gaaraan isla markiiba waxay bilaabaan qorshahooda oo ay rabaan inay nolosha wax ka gaaraan. Maalmo kadib waxaad arkaysaa qofkii oo iska dhaafay qorshihii uu rabay inuu wax ka gaaro oo markaasi uu ka caajisay. Looma baahno inaad midaasi aad samayso. Isku day wax kasto oo aad rabto inaad wax ka gaarto inaad ku celceliso aad joogtayso khaladaadkaagana ay ku noqdaan experience oo aad mar walba aadan ku celcelin wixii qalad ah. 5 shay haddii aad samayso waxaa hubaal ah inaad noloshaada isbedelayso oo aad horumar gaarayso sidii aad rabtana noloshaada markaasi ay ku noqonayso. Balanteeno waxaa weeye inaan 5 qodob si joogto ah amaba si joogto ah u sameeyno si aan nolosheena horumar ugu gaarno. Haddii aad muuqaalkan waxaad ka faa'iiday waxaan si naxariis leh kaaga codsanaa inaad YouTube-kan subscribe inoo saarto si aan u gaarno hadafkeena oo ah 2k subscribe. aad u mahadsantiin dhamaantiin.